bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. halkani waa janaalkeena runta wararka. qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqon doona wasiirka amniga oo tallaabo halis ku ah maamulka gobolka banaadir qaadaya, wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya oo Kenya cadaadis saaraya, wararkii ugu dambeeyay xaaladda guud ee doorashooyinka Soomaaliya iyo sidoo kale Fahad Yaasiin kulanka uu la qaatay madaxweynaha maamulka Hirshabelle waxaa ka soo baxay iyo khilaafka siyaasadeed ee Rooble iyo Farmaajo oo mar kale cirka isku sii shareeraya ayaan daawadayaal warkeena idinkugu soo gudbin doonaa. haddaba daawad haddii aad janaalkeena ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka, wararkeenana like iyo share iyo commentiga noogu dadaala. aan ku bilaabo qodobka ugu horeeya. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa waqti kan qorshayaashiisa ugu waaweyn waxa uu yahay inuu tallaabooyin waaweyn u qaado oo ku aadan sidii amniga guud ee dalka uu gacantiisa uu mar kale uu kusoo geli lahaa. wasiirka amniga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in uu maalmihii ugu dambeeyay la socday khilaafyada kala duwan ee dalka ka jira, sidoo kale cadaadis xoogan uu doonaya in uu saaro maamulka gobolka Banaadir. maamulka gobolka Banaadir iyo wasiirka amniga ayaa khilaaf siyaasadeed soo kala dhexgalay, kaasi oo u sabab yahay in madaxweyne Farmaajo uu awood buuxda uu siiyay maamulka gobolka Banaadir. maamulka gobolka Banaadir ayaa waxay sheegeen in wax waliba amni ah oo gobolka Banaadir ku saabsan in iyaga lagala tashanayo. taasina waxa wasiirka amniga uu ku tilmaamay midna ma rabo inuu cuntameynin, waxaana arrinkan ay ka dhigan tahay in xaaladda siyaasadeed ee gobolka ay aad u cakiran tahay. haddana Cabdullaahi Maxamed Nuur ayaa qorshihiisa ugu weyn waxa uu yahay inuu gebi ahaanba uu ka taqlusiyo gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo kooxda taageersan Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo, maadaama ra'iisul wasaare Rooble iyo wasiirka amniga waqtiga kan ay isku koox yihiin. haddana waxa ay rajeynayaan inay ka adkaadaan oo ay meel iska saaraan cid kasta oo siyaasadooda kasoo horjeeda. wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay sheegayaan inuu socdo qorshaha uu ku doonayo wasiirka amniga in cid kasta oo taageerta Farmaajo uu xilka uu ka qaado, inkastoo uu aad ugu dhow yahay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble. ra'iisul wasaaraha dalka iyo sidoo kale madaxweynaha dalka khilaafkooda markii uu soo ifafaala baxay ayaa waxaa magaalada Muqdisho la doonayay in dibadbaxyo kala duwan oo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo ay ka dhacaan. hase ahaatee maamulka gobolka Banaadir ayaa si cad uga soo horjeestay in dibadbaxyo looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo ay ka dhacaan magaalada Muqdisho, waxaana wasaaradda amnigu ay sheegtay inaysan taasi u cuntami doonin. dhinaca kalena daawadayaal, khilaafka Maxamed Xuseen Rooble iyo Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa waxaa mar kale laga cabsi qabaa in dagaal gacanka hadal ah uu dhex maro labada mas-uul ee ugu sareysa dalka ayaa khilaafkooda waxa uu hadda u muuqanayaa mid aad u xoogan, iyadoo beesha caalamku ay dooneysay inay xaliso khilaafka Rooble iyo Farmaajo. khilaafka Farmaajo iyo Rooble tan iyo 27 December wixii ka dambeeyay midka kale waxa uu doonayaa inuu awoodda guud ee madaxtooyada Soomaaliya isaga gacantiisa ay soo gasho. shacabka reer Muqdisho ayaa cabsi xoogan ka qaba in ay dagaalkaasi saameyn badan uu ku yeesho. saraakiisha ayaa waxay la kala safan yihiin madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka, waxaana si gaar ah loo tilmaamayaa in taliyaha ciidanka xoogga dalka uu doonayay in awoodda guud ee dalka aysan marnaba gacantiisa ka bixin madaxweynaha dalka. haddii ay taasi ay dhacdana waxay noqon doontaa in mar kale dalka dhibaatooyin badan ay geli doono. qeybaha kala duwan ee ku nool Muqdisho iyo sidoo kale midowga musharaxiinta ayaa wax il gaar ah ay ku hayaan wax kasta oo siyaasad ah kusoo kordhi kara dalka. xaaladaha guud ee maalmihii ugu dambeeyay ka jiray magaalada Muqdisho ay ahayd mid aad u adag. madaxda maamul goboleedyada ayaa la kala safan Maxamed Xuseen Rooble iyo sidoo kale Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo. wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu markan uu doonayaa in uu baaris degdeg ah uu ku sameeyo dhibaatooyinka kala duwan ee ciidamada Kenya ay ka geysteen gudaha Soomaaliya. wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabduqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa war-saxaafadeed uu soo saaray kaga hadlay duqeymaha diyaaradeed oo la sheegay in xarumo ganacsi ay ku yaala Jubbooyinka iyo Gedo loo geystay, islamarkaana taasi ayna dowladda Soomaaliya u dulqaadanaynin. wasiirka ayaa wax laga xumaado ku sheegay falalka, isagoona kaga tacsiyeeyay muwaadiniinta dhibka soo gaaray, tilmaamayna in ay wax cad ay ka qaban doonaan sida uu sheegay.
wasiirka gaashaandhigga xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa uu kala uu dowladda Kenya duqeymaha ay ka geysanayso gudaha Soomaaliya ku tilmaamay mid marnaba loo dulqaadanaynin waqti kan loo baahan yahay in ay dowladda ay jawaabo cad ay ka bixiso sida uu sheegay wasiirka. qoraalkani wasiirka uu soo saaray ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli Kenya ay dhibaato badan ay ku hayso shacabka ku nool qeybo kamid ah deegaanada Jubbaland iyadoona madaxweynaha maamulka Jubbaland uu tallaabo cad uu ku aadan dhibaatooyinka maamulka Jubbaland deegaanadooda ciidamada Kenya ay ka geysanayaan duqeymahaasna waxay noqonayaan kuwa saameyn badan shacabka ku nool qeybo kamid ah deegaanada Jubbaland saameyn ay ku yeeshay. dhanka kalena Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa kulan xasaasi ah la yeeshay madaxweynaha maamulka Hirshabelle. Fahad Yaasiin ayaa kulan socday ilaa 4 saacadood uu la qaatay madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen isagoona kala hadlay arrimo dhowr ah. macluumaad ay heshay warbaahinta ayaa tibaaxaya inuu kulanka uu ka dhacay hotel ku yaala gudaha magaalada Tani Muqdisho waxaana kulankaasi uu ahaa mid ay si gaar ah ay kaga wada hadleen arrimo ku aadan doorashooyinka. wararka ayaa sheegaya in kulanka Fahad iyo Guudlaawe uu ahaa mid qarsoodi ah oo albaabada u xirnaa oo xitaa loo diiday in ay qolka u galaan ilaalada iyo sidoo kale shakhsiyaadka kale ee labada dhinac la socday. arrimaha Fahad uu kala hadlay Cali Guudlaawe waxaa kamid ah kursiga golaha shacabka uu doonayo inuu ku fariisto kaasi oo deegaan doorashadiisu tahay Beledweyne oo ka tirsan maamulka Hirshabelle. kursigani waxaa muddo dheer ku fadhiya Faarax Cabduqaadir oo Damul Jadiid ka tirsan waxaana sanadkan uu doonaya inuu Faarax uu ka taqlusiyo. Fahad ayaa u xusul duubanaya in deegaan doorashada kursiga oo ah magaalada Beledweyne in laga soo wareejiyo loona soo wareejiyo magaalada Jowhar maadaama Muqdisho u dhowdahay isla markaana uu amnigiisa uu yahay mid la isku haleyn karo. sidoo kale Cali Guudlaawe ayaa madaxtooyada Soomaaliya kula kulmay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo waxaana uu kala hadlay arrimo dhowr ah. Fahad ayaa tan iyo markii uu fashilmay isku daygii Afgembi 27 December waxa uu hadii jeer uu si gaar ah uu kaga fogaanayay madaxtooyada Soomaaliya isagoona ka cabsi qaba in ciidanka badbaado qaran ay weerar ay ku soo qaadaan maadaama ciidanka badbaado qaran ay gudaha madaxtooyada ay galeen waxaana ay noqotay mid cabsi xoogan ay ku abuurtay Fahad Yaasiin Xaaji Daahir. madaxweynaha maamulka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa hadda waxaa la sheegayaa in uu taageero cad u muujinayo madaxweynaha iyo sidoo kale xaaladaha kale iyo sida ay wararkii ugu dambeeyay aan ku helayno waxay sheegayaan in ay mar walba maamulkaasi ay talaabooyin ay doonayaan oo ku aadan doorashooyinka inay qaadaan. dhanka kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxa uu mar kale u muuqanayaa mid siyaasadiisa ay guuldareysanayso. ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa la sheegayaa in guulaha siyaasadeed ee waqtigan uu soo xaroonaya ay yihiin kuwo isdaba joog ah inkastoo uu mararka qaarkood guulaha uu gaarayo gacantiisa ay ka baxsadaan. doorashada uu hogaanka guddiga doorashooyinka dalka ayaa shalayto ku soo baxay Muuse Geelle waxaana mustaqbal dhow uu u muuqanaya mid Rooble uu guulo siyaasadeed uu gaarayo. Muuse Geelle oo guddiga ka soo galay dhanka Puntland waxa uu taageero ka helaya xafiiska ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani. Rooble ayaa dagaal siyaasadeed oo xoogan u soo galay inuu gacanta ku dhigo hogaanka guddiga kadib markii xilka laga qaaday gudoomiyihii hore Maxamed Xasan Ciro taasi oo guul hordhac u ahayd ra'iisul wasaaraha. ahaatee hadda waxay u muuqanaysaa in ra'iisul wasaaraha guulahaasi gibi ahaanba gacantiisa ay ka baxayaan maadaama hadda la sheegayo in Saciid Cabdullaahi Dani oo ah musharax madaxweyne inuu taageero u siinayo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble taageeraha uu siinayo Dani ayaa waxay noqon kartaa mid dhibaato badan u keeni karta maadaama Dani uu yahay musharax madaxweyne
iyadoona uu naceebka uu qabo farmaajo awgeed gebi ahaanba uu ka baxayo ballamihii hore uu ula galay farmaajo. Ma cadda sababta Rooble uu heli waayay musharax ka madax banaan labadaasi dhinac oo si gaar ah isaga uu u wato waqtiga kan. Guud ahaan daawadayaal warkii oo aad ka daawanayseen janaalkeena runta wararka saaxiibada aan jecelnahay waa nageynta. Haddaba daawada haddii aad janaalkeena runta ku cusub tahay subscribe noo saar janaalka wararkeena, like iyo share kii commentiga noogu dadaala. waadna mahadsantihiin. nabadgelyo.